السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. bacda salaan waxaan ka hadlayaa waxaan la yiri shir waa shir damajadiida isugu timi magaalada Muqdisho. maxay ahaydey iyo madaxweynahoodii Xasan Sheikh oo yiri shir baan qabanayaa hala yimaado. shirka waxaan u arkaa caalamka inuu isku tusayo markii dhaqaalihii loo diiday oo la yiri orod isoo hagaaji wuxuu ka hadlu garan waayey wuxuu leeyahay siyaasiyiin baa la shiraya way kan waxa uu la shirayana waa waxaynu aragno waa Xasan Cali Khayr oo badbaado qaran ahaa iyo mid halkaa ka dhacnaclin jiray la yiraahdo Cosoble odagii Shariif Sakiin roble gogarad iyo waxaan maxay ahaydey 20 nin oo reer Puntland oo iyaga laftigooda damajadiidkaas ka iyo waxaan dhaamin waxa ku jira maxay ahaydey Cali Maxamed Geedi iyo Maxamed Muusal labada mooyaane waxa kale waa wixii badbaado qaran ahaa iyo wixii raacsanaa. marka waxaan arkaa caalamka in la isku tusayo wax faa'iido wanaag ka soo socdaanaanay jirin halka wax rajo laga qabana waddanka Soomaaliya imika ma jirto haba yaraatay. maxay ahayd wanaag hadii la doonayo wanaag la wado de wadada wanaag la qaadi lahaa maanta meel laga hadlo ma taagna Soomaaliya khalaas mar hore hoyatay qabsigii la qabsan lahaa baa u dhiman kaliya ciidankii ma jiro ciidankii oo talabaabiyey oo maamarada loo dhigay dhaqaalii wata kamaradu iyadoo hayso kala cararayo roble baan ku guranay jawaabka intii kalena ay kala qaybsadeen khalaas xoog lacag bangiga uga tagay madaxweyne farmaajo ee markii labada casho ugu horreeyay la kala qaybsaday wixii cashuur iyo dhaqaalihi la urur jiray ciidamada la siin jirayna iyo maxay ahayd shaqaalaha dawladda jeebka lagu shubto wax nidaam dawladeed la yiraahdo muuqdaan ma jiro. odayga Xasan Sheikh iyo dumarka uu tamaaqa waxay yihiin laba dumar oo la socda baa meesha u taliya kan la leeyahay waa ra'iisul wasaarena meel joogo ma yaqaanaan meel joogo meel ka shaqeeyo ma arag arun baa soo saaray isagoo halka ka hadlayo dadka uu ka soo jeedo u jawaabaya. marka waxay ahaydee wax wanaag meesha ka muuqdo laba nin baan arkay meesha ku jira qoladii nabadii nolol Maxamed Muusal iyo Cali Maxamed Geedi labadaasna waxaan leeyahay furushka xaarka yaan la marmarina ka carar meesha ka taga wax tala la yiraahdo wax wanaag la yiraahdo toona meesha ma jiraan. kii Xasan Cali Khayr markii hore la soo shaqeeyay nabadii nololna oo madaxweynuhu sida wanaagsan maxay ahaydey u waday oo shaqooyinkii farmaajo wax ka soo qabtay kaasa maxay ahayd isaguna oo lumay markii dambe noqday badbaado qaran baa isaguna ku jira meesha midna waa kii gogoradda u xiliyay ninkii Kenya madaxweynaha Kenya oo lahaa shacabka iyaga Soomaaliyeed laaya gasho gogoradan lahaa oo shacabka lay roble baahanoo iska neef isagoo neef buya kaas waa xoolo lumay kaas waxaasaa meesha ka nacnaclaa ka hadlayay oo farmaajo afkiisa ku taagay yuurada leh. marka maxay ahaydey meeshan cidima joogto odayga kanna waa oday lumay wixii aan la garanayay meel ka socday meel ka soo jeedato ummadii Soomaaliyeedna waa isku diray siraadkii wanaagsanaa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u baabiyo oo ahaa ummadda Soomaaliyeed wada socota waqooyi ila koonfur afarta koone Soomaalidu markaa heshiis ay ahayd oo doonayay ummadda Soomaaliyeed inuu isu keeno wanaag dhex dhigay maxay ahaydey say baabiyaan raadkiisii wanaagsanaa way isku direen ummadda Soomaaliyeed meel walbana maanta dagaal ba ka soconaya Soomaaliya waqooyina waddanka arkay isaaqii daarood ba isku direen si raadkii farmaajo loo masaxo colaad baa la dhex dhigay iyadoo markii ummadda aad isku soo dhawaatay waxaa niman xun siyaasiyiin oo lacag ku cunaa ummadda Ilaahay islaamada isku diraya
oo dhaqaalahoodii cunaya dhinacay doonaan baa ka soo jeedeen meeshay doonaan ka soo jeeda waxaan leeyahay maxay ahaydee maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantahay inaad halkaa imanin buriskooda xaarkay doonayeen inay kula wareegaan oo ku marmariyaan waxaana leeyahay meesha muqdisho la yidhaahdo maxay ahaydee tala dambena ha u qabanin hana imanin caasimadda haddii laga wareejinayo magaalada muqdisho okay wadda Soomaaliyeed ku rabtaa inaad u noqoto madaxweyne laakiin haddii kale meeshayna ogeyn weeye meeshaasi bahalaa jooga Mooryaana shicib wanaagsanna ma leh oo jooga oo xaqa ka hadla xaqa wiilinaya xumaantoodii wanaagtoodna ma kala jecla qabiil bay xaqleenayaan oo ay naakaynayo odayadii waaweynay abgal lahaayeen unu kaale oo kuwa kan hadda madaxda sheeganaya unu kaale magaalada iyada waxaa siiyay wana bagarayn caasimad Soomaaliyeed iyaga meeshay u badan yihiin haday yiraahdaan unu kaale sidee dowladnimada Soomaaliyeed u dhismaysa meesha waa in caasimadda laga bedelaa ilaa caasimadda halka laga bedelana waxaan kula talinayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan cag soo dhigin halkaas wax loo yimaado wax la arko toona ma abaalna ma leh shacabkaagina agay buurka kula tuntay buurka khasaare tacab khasaar shan sano wixii ka soo tacaysay oo habeenii baan loo soo jeeday waxa ka haray hawadii maxay ahaydee Soomaaliya iyo badii labadaas oo haray baan maleynaya labadaan waxa ka filaya oo soo socdaan waa gadan doonaan caalamkana ceeb ay noo dhigeen ceeb iyo fadeexad iyo falxumo Soomaaliya leeyahay kor soo socota waxa la array sida xayawaanka iyagu diirsanaya oo baaba oo ciidan lahayn oo ciidamadii la baabiyay wax kasta digada laga dhigay oo nimanka ciidankooda leeynaya waxay yihiin war waxa kan waxay u baahan yihiin wax madad islaamka qabta war meesha caasimadda laga bedelo tala kale anagu aan hayaa ma jirto Soomaalida waqti la isku diray meel walba dagaal ka soconaya afarta koona mudan Soomaaliyeed Ilaahay oo maqan Ilaahay bay leeyihiin wixii waxaan leeyahay wixii wax garanayo meesha had tegina mustaqbal ma leh Soomaaliya waa u dhamaatay rajaan ka qabnaan maanta ma jirto rajada yarada badda Soomaaliyeed sugaysana waa taadib leeyish farmaajo intii imaamada Soomaaliyeed iyo diilatay oo dowladnimada dareentay dowladnimada inta san dareennay imika waxaan leenahay Soomaaliya Ilaahay oo maqan Soomaaliya si timaado hata shaytaan leenahay caasimadda halka laga bedelo inta madal la qabsan oo tii loo sheego la yiri wal qabsanaya tabta saban bal lagu cilniyo tayo inta ku tir haddii aad wadada ku soo socoto xasan sheekh lagu yiri marka ninkan iyo gabadhiisa sarboodaya oo waxay helaan jeebka ku waranaya wala umada Soomaaliyeed fadxad iyo ceeb bay keeneen Ilaahay baa jira waxa leeyahay war waxaan dadka wixii ka qaban karaya qabteen haddaan la qaban karayna meesha caasimadda laga bedelo sidaas aan ku talinayaa anigu assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh